السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن كلنتي وناسن كسو دواad barnaamijkan kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodkii koonfur Hindi maxaa ka cusub ninkii Hrithik Roshan waa la waday lugweynaha talugu waa la geeyay wuxuu arkay waxa qalqi taageerayaal NTR taageersan sababtoo waxa ay war release event ee waxa isku soo baxay dad stage-ka Hrithik markii la keenay yaaba ka soo haray sababtoo NTR waa man of mass waa talugu tolkiisa ma loo kala harana ku ninka sida loogu camiray Hrithik Roshan martii uu ahay soo dhaweyntii mudnaan waa la siiyay stage-kay wada imaadeen Hrithik markuu fiirshay ishiis intay qabat in ka fikrad isku imaadeen fagaaraha madda uu siilis ugu soo baxay Hrithik Roshan wuxuu u mahad celiyay ismaamulka Andhra Pradesh ee Telangana teamka waartu u mahad celiyay saaxiibkiisa oo martii uu ahay ninka lagu magacaabo NTR Hrithik Roshan wuxuu sheegay filimka waartu inuu yahay filim asiga u qaas ah intense xamaasad leh dadkan isku soo baxeen waxay u imaadeen waxa la mid oo xiiso badan in heli doonaan saadata release event-ii waartu waan diirada saarina kadib aan u tagi doonaa tigid iyo anaga kooli meelna bursana maxaa naga galay meeshaana stage-ka aysan caawala inta u kala furmaba team waartu biri waxa dhacwayaabi doontiin wixii ka dambeeyo saaxiibayaal NTR waxa martiya loo ahay director Ayan Mukherjee goobta ka hadlay Ayan wuxuu gabi ahaan meesha ka saaray warar rumor amxan oo maalmahan la NTR filimka kala bar uu soo baxa reer Taluga ka xanaaqsan waxay superstar kale ma filimka sugan ilaa kala barka gaar ah ku jira miya wuxuu director Ayan Mukherjee shakadaas wax ka jira malaha anytime anywhere waqti kasta email kasta ka soo gali kara wada filimka waxaan idin ballan qaaday ka dhawaajiyay doorka filimka uu ku leeyahay inuu noqon doono door memorable la xasuusnaan doono filimkan wuxuu waa explosive indhaha laga qaadi karin naga famsi oo cajaladaha qaybina qaybta afterluga asigana wuxuu dhahay waa nasiib badan inaan film waartu oo kala gacanta ku dhigo waan cajaladaha qaybin doono wuxuu dhahay daawadayaasha qiimaha badan iyo taageerayaasha goobtan joogo waxa aan soo gato dhawa waxa idinka hubay tigidka gatooda filimkana daawada Khamiis iyo 14 Agoosto iyo waartu iyo Talugu qabsan doono Hrithik Roshan wax yar afterlugu labado kalmad ku toortay Talugu waxay dhayaa ninka xamalaysa waa idin fahmaamiya waabsi alla meelaha qaar marka tagtid luqadooda labado kalmad laga bartaa kadib odaga waxaan su'aal weydiis waxa la dhahay ka waran career-ka 25 sano fanka ku jirtay waartu halkee ayuu ka soo galaa filimada halka ugu sareeyo galay oo sababta wuxuu dhahay juhdiga ku baxshoon ogahay koona biyaar ah juhdiga ku baxsh mid lamana ku baxsho dhahay xilligii aan sameeyay kariish iyo islamid ah waarkii qaybta kood wuxuu dhahay comeback ku sameeyay caadi ma ahan waartu iyo doorkii kabiir isoo laabashadiisa wuxuu waaba ka darantay dhahay dhinaca kale laakiin wuxuu aamina ninkani ag taagan wuxuu dhahay filimka waxa uu ka sameeyay waa yaabi doontiin wuxuu dhahay the real tiger shabeelka dhabta wuxuu dhahay waa ninkan Jewel NTR waa dhahay soo kale tan wuxuu dhahay waxa la weydiiyay ka waran marka duweys dhaawacyo dhibaatooyin ku soo gaar Hrithik anoo ku raaxaysan English ku hadla laakiin NTR markii microphone lagu wareejiyay santaab jana qaba waxa uu sheegay Hrithik Roshan ayaa gabar u dhawaado muxuu sheegayaa waxa meeshaas ku hadlaya Hrithik indhaha taag Hrithik ay waa isku dal yihiin isku dhiig yihiin walaalayihiin Hindi isniina fahmo waa ani inta ka fahmo walaalayaal oo Soomaali iska ah NTR Hrithik indha ka soo taago xitaa NTR Hrithik wuxuu dhahay sar mudan iyo dul qaado dhahay waa jalbeesanaya Talugu ka buuxsan hadhow ana ku fasiri doono Hrithikna gabar ag joogtaba oo xariiri meesha ka eedo wuxuu sheegay uu fasiris laakiin NTR caawas uu jalbeesnaa laga ma sheegi karo kullee Hrithik iska wadanayna Hrithik marka hore hadalkiisa fahmay English ku hadla xataa Hindi wala fahmi kara laakiin ninkan wuxuu ku hadlay ilaahay wadii hal xab laga fahmay maxaa dhacay bismillah Talugu iyo Tamil dan ilaahay ka magalshay ilaa wax laga fahmay ma lahanbo dhagta taag adila taagaysa maana emotionkiisna fiilis maana inuu wax kala sheegay ma taqaanid Hrithik Roshan wuxuu dhahay marka asigoo NTR waxa la dhahay dhaawac ku gaar marka sameeynayay waartu ka waran xanuunkii dhibaatada ku gaar wuxuu dhahay waa sax shaqo adag marka qabato waxa loo dhibtan laguma dheefso dhibaatooyin badan ay gaareen laakiin wuxuu dhahay markastoo xanuun aan dareemo isna waa dhaawacantay waxaan arkaayo dhahay libaaxan ama shabeelkan agteeda joogo sidoo wax u jilay waa istaagaa waxa NTR macna dhiirigelintii ugu weyneed uu ahaa dhaawac kasta dhib kasto gaar si markaan arkay wuxuu waa iloobay shaqadan qabanayo sababtoo wuxuu waa nin diyaarsan wuxuu kale u dhahay 100% aan wax ka barto jilayaasha aan wax la jilayo dhahay nin walba waxbaan ka bartaa laakiin this one wuxuu dhahay 99 ama 99.9 kama barane 100% aan 10 ka barto dhahay 10 kan ka bartaan waxay tuu dhahay ina kaamirada markii la dhahay action la dhahay diyaar noqotay wuxuu iga yaabsado ninkan kaamirada action mal dhaw dhahay hal xabo uu qaldaa mar wada xitaa ma hubo shaki ma galay markuu dhameeyo shaqadii isiin ku dhamay xitaa ma dhahay intuu cameramanka director u tago itoosibal waxaan doomo ku qanacsanahay this guy wuxuu dhahay waligeena lamid ma arkin uu sababto bahasha laabta kaga jirtaa uu dhahay film ayadoo ay tahay sidoo u jilay uu dhahay hal xabo u qaldaa ma jirto markii shaqada dhamaatane oo action rap lahayn waa iska tagaa uu dhahay xitaa ma u baahno inuu dib u fiirsho isdhaho wal wixii aan sameeyay maxaa ka qaldanaa iyo marka waxay ii too dhahay lesson learn 10 ka barto wuxuu dhahay saaxiib NTR waxaan ka ballan qaadaa uu dhahay mustaqbalka
filimada aan samayn doono dheh inaan adiga camal noqon doono cashirkaas waa qorto dheh Hrithik Roshan awal wuxuu dhaana filimku waa iska jiri jiray marka qaar aan galeynaa waa ku celinaynaa waxa la dhahaa kad hala jaro saas ma aha anaa marka qaar qancin waxaan sameynaayo laakiin ninkan wuxuu dhahay wuxuu sameeyay ma ku laabto dheh perfectina waa marka wuxuu dhahay pointigaas waa ka barto dheh saaxiibkeen mid kale wuxuu dhahay ninkan ogaado dhahay waxa jirto dheh xirfad kale uu leeyahay dhahay cunta karinta wuxuu dhahay laguma gaaro faraha iska dhuuqeer waxa uu sameeyay saaxiibo wuxuu dhahay NTR Bariis Baryaaniga u xiiso dhahay aan mustaqbalka wada shaqeyno ama yaana shaqeynin hal mid iga ballan qaado Bariis Baryaaniga macana karin jirtay ayaa weyn u dhahay ballan waa wada ballan NTR ilaa ninka waxa waay cunta kariyaan caadi ah waa Hrithik Roshan ka cabaado wuxuu waxa uu karinayo faraha iska goosanaysan umada meesha joogta ninkan superstar ku oo qalqigan faraha badan isku imaaday isa jeef u dhahay cuntada uu karsho waa yaabay u dhahay على تحدي Hrithik Roshan ninka waa cimaamada maahan soo amaan ma malay karto wuxuu filimkan marka daawatina yaabi doontii ninkan juhdiga u baxshay iyo sida uu dabcan wuxuu dhahay superstar iyo jaceelkan u muujinaysin he deserve inuu u qalmaayo NTR waa kala badbatay soo kale wuxuu dhahay aniga asan iska dhax arkaayo dhahay asigan anu iska dhax arkaayo dhahay waliba wuxuu dhahay aniga wax yaraan kaga daydaa wuxuu dhahay NTR ma jirto dhahay mudan aniga 100% adaan kugu daydaa waxa aan sameys lama sameyn karo labadeena wuxuu dhahay 25 years aan fan ku jirnaa oo soo jabhadeynay adiga waxa waa Hrithik Roshan 99% uu hadlaayay wuxuu amaanay ninku martida uu amaanay sababta wuxuu hortaagan yahay 10 kun qofood hortaagan yahay oo ku qasbay inuu amaan waa yaab markuu arka popularity technican iyo jaceelka loo qabo Hrithik Roshan amaan uu qabay kadib directorkiisu amaanay teamkiisu amaanay wuxuu dhahay halaan kadib hadaan warsi wado ninkan wax walba uu yahay lama dhameyn karo NTR u dhahay marka martiyaan ahay wuxuu dhahay yaan isloobin microphone aan ku wareejiyo dhahay microphone ku NTR ku wareejiyo waa markii la dhahayo mudan ii kaadi marshadan gashana marshada u gashto uu si hadalka ابو انا يا NTR اللي انت اللوجو وحواي سو وشبالنا وايا ما كنا نك المهم على حال فيلم كي انت Hrithik Roshan noo sheegay iyo famsi ma had cilinta famsi waa fahmay Hrithik Roshan oo ama ma xogaa waxaas waa ka fahmay laakiin waxaas wax la fahmi karo ilaahay unta maalmo kale iyo biri iyo maqaalada ay soo qaataan shabakadaha koonfur English ka dhigana ka soo qaata maahane laakiin ninkaas wuxuu ka hadlay wixii Hrithik Roshan sheegi lahaa asna dhinaciisa uu ka amaana film kale ka hadlay garta waa go'aantay marka intaas maar wax ka dheeri ah ma jiri karaa ma ninkaas iskuma taxaluun jikala qof yaqaan talugu waa buuxane oo team Zaki Media soo daawadana soo dhaweynana xogaa commentiyada wax yar snapshot noo si nooska kookabane it will be perfect ahaan doontaa saacad markaana u soo laabano filimka Kooli oo ayraade awartu wuxuu dhameys 24 saac u dhameystay advance booking waxa ogaatin advance booking kana qaybta talugu lama furin maxaa dhacay taqaaniine هذا حسستين أيها أصبح رأيين تيم وارتو واحد هان سيدا بوشباي كلا بوشباي تو كان هايست بيك كديجنا هو نقول على فيلم كتير وقال لسه وقته هدي بوشباي تو العكس لو قرأ فيلم كأنه حدا إكسبنسيف ولا عكس إنه قرأ دتك مرتبلكس كسنجل سكينسك العجب والي لو دهونا هرت اللي وركي مقلن تلوج واتقان اسمام لو اندرا برداش تلنغانا waxa la nagu soo wareejiyay filimku waxa u baahantiin sheegta Bryson kiina keena Bryson markay keenan ismaamulku waxay anaga soo jaangoona bushba anaga u jaangoona lacagta qaaliga ticket hiking bushba anaga ogolaan lahay inta soo maalmood 10 maalmood amal adiga Forest ugu kala la ogoliyo tigidhka qaalin oo kadib qiimaha hoos loo dhigo xeerkii lagu dhaqay filimada lagu dhaqaale soo dhawaada keena waxa haysinaa waaba laga furto wixii dhamaaba marka bari ka soo ka tigidhka albaabada lama furay talugu imtixaan waa hadee maqlaan bal lacag la qaaliyana ismaamulka hunguriga galay waxba ka dhax arkaa marka waxa la filimka iska soo wareejiye tigidhka siyaasadda u baahantiin keena anagana we have our own policy ismaamulana federal waa kaas dhibkaas leexitaa waa la isku qabsanaa Bryson anaga waxa la bamba inoo iimaanaysiin iyo dalhi nooga iimaanaysiin meeshan waxa la talugu walaha anaga u talnaa Bryson anaga goynana qiimaha dadka ay ku daawanay anaga naqaan tigidh hayg marabtiino wadadii ay bushbaato iyo mareen filimada waaweyn ay marsiina waana taqaan qartaa takriiwa marmarka qaar waxa laga inay ku fududeen qiimaha tigidhka sare ku qaadaan marmarka qaar meel iska qabsanaa waxay tigidhka sare loo ma qaadi karo waxaas waa soo baran meeqan ka sheekeynna talugu iyo problem ka jiro laakiin waxaan u rajaynaynaa dabcan in tigidhka bushbaayo loo qaaliyay kadibna laakiin waa ku dheelay maanta axad ku fiicnaa caawa berlis event ka jirto iyo tigidhka albaabada 100% talugu loo furo si loo dhameysto laakiin beriya kulay sugan doonaa hadda aan soo qaadano gudaha Hindiya 50,000 oo tigidh la iibsay 24 saac ugu horeysa qaybta Hindiga ah waa markii la fiirsho excellent response walaakiin extraordinary ma aan ogaada Faras 24 hours filimka lagu magacaabo Wartu saaxiibal 50,000 oo tigidh ayaa la iibsaday it's excellent wasi shabakada Sonic ilaa laakiin shirkada Final Fariiq ma qodno hal qalad ee teamka galan xal midaan sheegay oo hadda lagu cilna wixii taal hal mar albaabada in loo furo oo language Hindi Tamil Telugu waxa
هلي كتبوا هل مر واحد تيجي أدبد أفر قام برام قاي خسارة قاد لكن تلوجا دب ودعاء هنديا حلا وحير كفرة سعادة قدام بمانت هنديا لقدنا بريت اللوجا لفرة وحاس ما في يعني فيلم وين وما في يعني كل وبرايسنج إياه ولا يسببنا هستان لكن وأعرف ماشى صح مودة إنه كل تا باي ذا وي لك وقاعدة أنا وارتوا وكل سنة إنه day one سمين دون ريكورد أبن سمين دون أفندية سوكلة تنماني كود وول وارجراسن وسنديدن دونين مرك أنت أصلا كهاي وحي كلا سوكر نو أسكوي مان دون إن شاء الله صاحب يال إن عكلا عن سوق قادنا كولي قرك وعوف ولد مانك سدحات عندنا إن لقيت صدح بقول كون أو تجد وحكو استاجو تونايت لو بقول سجاشن كون أو تجد يعني يبسدي across all language all قضاء إذل صدح بقول كون لح بقول كون ميستين لو بقول سجاشن كون لما سديد بقول سجاشن كون صدح مال متجد كلا يبسدي وحير on the verge of أوسجي إنه سجال بقول كون وجارو by the time بريتو حوا هالمليون أو تجد على يبسن دونا يعني يمكن ما كون ماشان كنتم كونوا تجد سومر يعني لقيتي أفرلاتك سعورز محاد ومركز الشقاوة اسكو ملا همبو كرر لك ليه تجد كلا لقيتي وحلي طبعا حتى اسكو مدقمان all language مركل لهم all indie مركل لهم طبعا وارتو تجد كلا لقيتي مركز وحس ولو جود بدونا لما بص وارد مرشدو صوب قشن دونا ريماكي بالكم باو سمين دونا انتي نقطبو وارد ادفانس بوكن وقل مهير دونا لو سوبر ستار انتي ار يهرتي قروشن صاحب يال sheekooyinka waartoog soo gogobsanaynaa sheekadii xaqiiqi noqotay oo maalmo dhaweed aan soo wadno ahayd Bobby Doll inuu waartoog ka soo muuqanayo hadda waa confirmation source-ga la xaqiijiyay waar markuu dhamaado end credit-ka waxaa jiri doona muuqaalo loogu gogol xaaray in lagu xirayo filimka Alpha oo Alia Bad hogaamiye ka tahay Bobby Laderka yahay bathaana ma soo galayo Tiger nama soo galay Spy University laakiin oo jinjiniya soo gali doona Bobby Doll waa taqaanay xamaasadeysan ani ninkaas waxa waaye space ku filan lama sii maahan haddii ninkaas la siiyo character strong ah jilin waa dhameeyay waliba waxa isla shantooda qaadi la siiyo oo qamar jina muujiya wow factor wali la iman doona isla yahay hadal haynta filimka xitaa qayb ka noqon doona let's wait and watch and suganable Bobby iyo clips ku soo dhamaadka filimku soo galay iyo response uu la imaado waan huba aditiya jabra wax ciyaar ma sameyn doono si uu Alpha u noqdo dab iyo holac Bobby wuxuu u diyaarin doonaa boss yaro holac Ladder Alpha uu yahay waxba la karkarana adig probability badan way jiri doontaa xitaa horaan u dhaanay NTR waxa laga herti karo xitaa Ladder inaysan ahayn ninkan uu yahay Ladder kala raadinayo أني هبل أن سجن وحي ومدة خميس إن شاء الله مركا وحي كلا سكر أسكو إيمان دونا صاحبي المقال كان أنت سنوي أجي حسوسنا دي أتي صاحب نوع صب جنال كان سبسكرايب نوصار وأنا كلنا دم هدو الله إدمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.